السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkeena waxaan ku soo qaadan doonaa mowduuc muhiim ah kaasi oo in badan dadka la warsado waxaanu yahay sida lagu baran karo luqadda Ingiriiska. ugu horreyn barashada luqad ama luqadda Ingiriiska ma aha wax sidaas u adag balse kaliya waxay kaaga baahan tahay in yar oo dadaal ah iyo joogteyn balse haddana waxaa jira tabo iyo wadiiqooyin loo maro barashada luqadda Ingiriiska. haddaba waxaan halkan idinku sheegi doonaa tallaabooyin haddii aad raacdo aad si fiican ugu baran karto luqadda Ingiriiska. tallaabada koowaad rabitaan xooggan. run ahaantii haddii aanad la iman rabitaan xooggan oo barashada luqadan ay ka tahay lablakac amaba aad aragtay dad baranaya kadibna aad kaga dhigtay dameeridhaan raacday luqadan ma baran doontid. markaasi aad u baratid luqadan waa in laga helaa rabitaan xooggan. tallaabada labaad inaad wax badan ku dhageysato luqadan. tallaabadani waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee lagu baran karo luqadda Ingiriiska amaba luqad kasta oo jirta. haddii aynu tusaale soo qaadano ilmaha yari marka uu dhasho barashada luqadiisa hooyo waxa uu ka bilaabaa inuu dhageysto waxa waalidkii ay ku hadlayaan. marka uu muddo badan dhageysto ayuu ku hadlaa. qolyaha luqadaha ku xeesha dheerina waxaabay dhahaan u baro luqadda sida canuga oo kale. sidaasi daraaddeed dhageysigu kaalin weyn ayuu ka qaataa barashada luqad cusub. tallaabada saddexaad wax badan ku akhri luqadda Ingiriiska xataa adiga oo aan garanayn macnaha waxaad akhrinayso. sidoo kale tallaabadani waa mid aad ugu muhiim ah qofka baranaya luqadda Ingiriiska oo faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah inaad erayo badan oo kugu cusub aad ka dhex heshid waxaad akhrinayso markaa wax badan ku akhri. tallaabada afraad baro erayo badan. waxaad ogaataa in luqadda laguu sheegayaaba ay tahay erayo isu tegey waxaana la yidhaahdaaba qofku inta eray ee uu garanayo ayuunbuu luqaddaana ka yaqaana. sidaas oo ay tahay waxaad samaysataa buug aad ku qorato erayo badan si aad u barato maalin walba erayo kugu cusub oo dadku isku wada maskax maaha baro maalin walba tiro cayiman oo erayo ah oo aad awoodi karto. muhiimadase waxa weeye in aad maalin walba barato erayo kugu cusub. tallaabada shanaad waxaad barataa weedho amba sentanisyo hadba sidii aad u taqaanid. barashada weedho badani waa tallaabo muhiim ah oo kaalina taaban karo ka qaadata darsidda iyo barashada luqad cusub. ugu dambayntii haddii ay kaa go'an tahay barashada luqadda Ingiriisku waad baran doontaa waanad gaadhi doontaa rajadaada ah inaad barato luqaddaasi Ingiriiska. waxaan kugu dari lahaa talooyinka aynu soo xusnay in aanan isku xijin barashada garaamarka kaasi oo arday badan ka hor istaagay inay bartaan luqadda Ingiriiska kuna noqday laf dhuun gashay. haddii aad isku xijisid naxwaha amba garaamarka weligaa ma dhaafi doontid how are you iyo I am fine. wassalaamu calaykum.